مؤلمة جدا. أنا أتساءل أين إسرائيل؟ أين حدود مدحوينها إسرائيل؟ تركيga Rajab Tayyip Erdogan ayaa madasha golaha guud ee qaramada midoobay oo ay ka hadlayaan dhammaan madaxda wadamada caalamka wuxuu ka jeediyay khudbad dheer oo qayb kamid ah uu si kulul uga hadlay xaaladda shacabka dulman ee reer Falastiin iyo gumaadka dhul balaarsiga la socda ee ay Yahuudda ku hayso. Erdogan ayaa madaxda caalamka ee uu ka hor hadlayay wuxuu tusiyay qariirada dhulka reer Falastiin su'aalna wuxuu uga dhigay halka ay dunidan kaga taal xuduudda ay Israa'iil leedahay. qariirada Erdogan oo soo qaatay ayaa tilmaamaha Israa'iil laga dhigay midabka cad si loo garto halka midda Falastiinna laga dhigay midabka cagaaran. wuxuuna yiri وأين تشمل أراضي إسرائيل في 1947 كانت إسرائيل وبعد ذلك ما aragtaan halkee ayay dal Israa'iil la yiraa kaga bilowdaa ama ku dhamaada dunidan. eega qariiradan meeday Israa'iil 1947 xagee bay Israa'iil hadda ku sugan tahay qaasatan intii u dhaxaysay sanadihii u dhaxeeyay 1949 iyo 1967 ila arka marba marka ka dambaysa waa isa sii ballaarinayaan Israa'iil dhulka shacabka Falastiinna waa lagu sii fidayaa. إسرائيل تتوسع تنمو بينما فلسطين تتقلص أراضيها. واليوم الحالة الحالية ما أنت حالة لتاجيها فلسطين وسيبا بيسا معدومة أيضا تكاد تكون غير موجودة. madaxweynaha Turkiga wuxuu soo jiitay inta ugu badan dareenka madaxda shirka joogta iyo dadiyowga caalamka intiisa kale kala socda. markii uu dhameeyay sharaxaadda xadgudubida Israa'iil ayuu Erdogan wuxuu weydiiyay su'aalo isxigxiga golaha guud ee qaramada midoobay wuxuuna yiri إذن تحت هذا السقف نحن هذه القرارات إذا كنا لا نستطيع أن نكون مؤثرين وين shirka golaha guud ee qaramada midoobay waxaan joognaa inaan soo saarno qaraaro aan saameyn lahayn. marka goormee ayaad maleynaysaan ama halkee ayaad maleynaysaan in cadaaladdu ay ka guuleysan karto? Israa'iil iyo Mareykanka iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan wuxuu ku eedeeyay inay ku mashquulsan yihiin faragelinta iyo weerarada tooska ah ee ay ku hayaan shacabka reer Falastiin gaar ahaan magaalada barakeysan ee Qudus al-Sharif loona yaqaan sidoo kale Jerusalem. إدارة إسرائيل أيضا تستمر في أعمالها الاستيطانية الظالمة وكذلك أعمالها في غزة وإنها غير مكترثين للحقوق الدولي. ما أنت dhulka Falastiin ee ku hoos jiray Israa'iil ayaa noqday mid ka mid ah meelaha ugu cadaalad darrada badan dunidan ayuu sidoo kale Erdogan hadalkiisa ku daray. Mareykanka ayuu Erdogan sidoo kale wuxuu ku eedeeyay qaraarkii ay ka soo saareen buuraha Golan Heights ee Syria oo uu ku sheegay in sidoo kale loo ballaarinayo Israa'iil. khudbadiisuna waxay ahayd mid ka mid ah khudbooyinka ugu saameynta badan ee ilaa hadda la jeediyay inta uu socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan 2019.